xalqadda shanaad waxay ku bilaabanaysaa si ay Han Si-jun uga argutaan tuugadii waxay qabteen Joyan. Kadib waxay waceen Han Si-jun iyagoo u sheegay inay saaxiibadiisa gacanta ugu jirto ayna tahay inuu degdeg ugu yimaado. Nasiib wanaag xilligaas Han Si-jun iyo Suhon way wada socdeen. Suhon aad ayuu u walwalay markuu warkaas maqlay. Intii tuugadu mashquulsanayeen Joyan waxay video call u dirtay asxaabteeda fasalka. Ardaydii waxay markiiba garteen inay xaaladdu xun tahay markay arkeen wejiyada tuugada. Sujin ayaa soo xasuusatay halka ay goobtaas ku taalo. Suhon iyo Han Si-jun waxay bilaabeen inay qolqol u raadiyaan. Suhon ayaana markii ugu horeysay helay Joyan. Suhon hadal badan ma dhihin ee wuxuu bilaabay inuu tuugada garaaco. Xitaa 5 qof ayaa celin weyday. Isla markiiba Han Si-jun ayaa soo gaaray, boorsadiisii ayuu dhinac u tuuray, dagaalkiina wuu ku soo biiray. Markii uu Han Si-jun arkay indhaha Joyan oo naxsan, isna xanaaq ayuu la waashay, wuxuuna bilaabay inuu hogaamiyihii tuugada si xun u garaaco. Wax yar kadib asxaabtii kale ee Joyan iyo Sujin ayaa goobta yimid. Sujin iyadoon hadal oranin ayay tuugadii laad ku dhufatay. Dagaalku wuxuu noqday mid aad u kulul. Maadaama Suhon iyo Han Si-jun ay ahaayeen khubaro ku takhasustay feerka, gabdhuhuna ay dagaalka yaqaaneen, tuugadii waa laga guulaystay. Maalintii xigtay, ninkii iska lahaa goobtii lagu dagaalamay ayaa dugsiga yimid, taas oo keentay in ardaydii oo dhan la ciqaabo. Dugsiga kadib, Suhon wuxuu raadiyey wiilkii dibi jiray Joyan, wuxuuna u adeegsaday awooddiisa si uu ugu qasbo wiilkaas inuu Joyan raaligelin siiyo. Habeenkaas wiilkii ayaa u yimid Joyan, iyadoo u malaynaysa inuu dib u keenay, ayay indhaha kaga buufisay walxo xanuun badan. Wiilkii oo naxsan ayaa yidhi, waxaan u imid inaan ku raaligeliyo keliya, kadibna wuu cararay. Joyan way la yaabtay isbeddelka wiilkaas. Maalintii xigtay waxaa soo baxday natiijadii imtixaanka. Han Si-jun wuxuu helay 50 dhibcood, qof kastaana wuu la yaabay, xitaa isaga laftiisa. Han Si-jun isagoo faanaya ayuu Joyan weydiiyey inta ay keentay. Markuu arkay inay keentay 49 dhibcood, wuxuu bilaabay inuu ku qoslo oo uu dhayarsado. Dhanka kale, Sujin aad ayay u caraysnayd oo u walwalsanayd, waayo haddii aysan kaalinta koowaad gelin, aabaheed wuxuu u garaaci jiray si naxariis darro ah. Habeenkaas markii ay Joyan guriga timid, hooyadeeda waxay aragtay natiijadeedii xumay. Hooyadeed aad ayay u xanaaqday, waxayna ka tuurtay dhammaan agabkii quruxda ee Joyan. Joyan waxay dareentay quus iyo murugo weyn, waxayna bilowday inay ilmayso, waayo make-upku wuxuu ahaa waxa keliya ee kalsoonida siinayay. Suhon ayaa yimid guriga si uu Joyan u soo raadiyo. Maadaama albaabku u furnaa, wuxuu galay gudaha, laakiin isla markiiba waxaa iyadoo ooyeysa soo baxday Joyan. Suhon oo naxay ayaa albaabka xirtay, dhinacna isku qariyey. Joyan waxay si toos ah u aaday meesha qashinka si ay u soo baarto make-upkii hooyadeeda ay tuurtay. Suhon isagoo raba inuu ka bixiyo murugada ayuu u kaxaystay inay cunto soo wada cunaan. Joyan niyadeedu way dhisantay. Markii ay guriga ku laabanayeen, waxay si lama filaan ah ugu istaagtay wax aysan garanayn. Joyan naxdin darteed ayay u dhaqaaqi weyday. Suhon ayaa ku yidhi fadhiiso si uu kabteeda uga nadiifiyo, laakiin Joyan oo wareersan ayay garabka Suhon ku fadhiisatay. Suhon ayaa ku yidhi halkaas kuma dhihin ee halkaas fadhiiso, taas oo keentay in Joyan ay aad u xishooto. Intay make-upkeedii qaadatay ayay damacday inay cararto, laakiin Suhon ayaa derbiga ku qabtay. Joyan waxay u malaysay inuu dhunkanayo, markaasay indhaha isku qabatay, laakiin Suhon wuxuu u hadiyeeyey biinka timaha. Maalintii xigtay, Suhon wuxuu arkay Sujin oo xaalad xun ku jirta. Markii uu weydiiyey, waxay u sheegtay in aabaheeda uu garaacay maadaama ay kaalinta koowaad weysay. Joyan oo meesha soo martay ayaa aragtay Sujin oo Suhon ku kor ooyeysa. Joyan waxay soo xasuusatay in Suhon uu mar yidhi, waxaan leeyahay qof aan jeclahay, markaasay u qaadatay inuu Sujin jecel yahay. Tani waxay keentay in Joyan ay Suhon ka fogaato, xitaa fasalkii casharada dheeriga ah ayay diiday inay ag fadhiisato. Gurigii markay ku laabatay aad ayay u murugootay, waxayna bilowday inay xanaaqeeda kula baxdo boombalo ay u matashay Suhon. Walaalkeedna markuu arkay ayuu ka cararay isagoo leh, walaashay way waalatay. Maalintii xigtay, Han Si-jun ayaa Joyan ka codsaday inay ka caawiso iibsashada hadiyad uu walaashiisa u geyn lahaa. Iyagoo wada socda, waxaa soo wacay Suhon. Suhon wuxuu maqlay codka Han Si-jun, wuxuuna dareemay masayr waali ah. Markii ay Joyan iyo Han Si-jun rabeen inay wiishka raacaan, waxaa gacanta ku qabtay albaabka wiishka Suhon oo wejigiisu si kale yahay. Suhon wuxuu qabtay hal gacan oo Joyan ah, Han Si-junna wuxuu qabtay gacantii kale. Labadoodii waxay bilaabeen inay Joyan sidii xarig isugu jiidjiidaan. Xitaa ma aysan dareensanayn in albaabka wiishku uu soo xirmaayo. Suhonna wuxuu si waali ah u riixayay badhanka wiishka si uusan Joyan ugu dhufanin. Suhon wuxuu isku dayay inuu wiishka ka baxo, laakiin nasiib darro wiishkii ayaa ciladoobay, saddexdoodiina waxay ku dhex godoomeen gudaha. Inkasta oo xaaladdu adkayd, labadii wiil midkoodna ma rabaan inay gacanta Joyan sii daayaan. Isla xilligaas, Joyan waxaa qabtay baahi musqul oo degdeg ah, waxayna dareentay inay dilaacayso. Han Si-jun ayaa bilaabay inuu caawimaad u qayliyo. Suhon isagoo raba inay Joyan isdejiso, ayuu koob gacanta Han Si-jun ku jiray ka dafay oo siiyey Joyan, taas oo Han Si-jun sii caraysiisay. Muddo kadib, kooxdii farsamada ayaa timid oo albaabkii furtay. Joyan intay xoog isku soo ururisay ayay bannaanka ugu carartay si la yaab leh, taas oo labadii wiilba ka yaabisay. Maalintii xigtay, dugsigu wuxuu abaabulay safar gaaban. Sujin waxay la yaabtay markay aragtay in Han Si-jun iyo Joyan ay xiran yihiin maaliyad isku mid ah, sidii dad isjecel oo kale. Markii baska la raacay, Suhon wuxuu rabay in Joyan ay soo ag fadhiisato, laakiin Sujin ayaa si degdeg ah booskii u qabsatay. Joyan waxay fadhiisatay dhabarka dambe, waxaana ag fadhiistay Han Si-jun. Ardaydii kale ayaa bilaabay inay ku qayliyaan, way isjecel yihiin. Suhon isagoo caraysan ayuu gadaal fiirinayay, balse waxba ma samayn karin. Markii meesha la gaaray, macallinkii ayaa canaantay
qaatay labadooda isagoo u haysta inay ula kac u xirteen dhar isku mid ah. Asxaabtu waxay sii wadeen inay ku kaftamaan in labadoodu ay shukaansanayaan. Joyan oo xishoonaysa ayaa Han Si-jun ku tiri shaarka iska siib, isna si kaftan ah wuxuu ugu jawaabay hadda ayaynu bilownay, miyaanay degdeg ahayn inaad i tiraahdo dharka iska siib. Dugsigu wuxuu habaystay ciyaar u baahan in 4 qof ay hal koox ay noqdaan. Saaxiibka Suhon ayaa isku dayay inuu Suhon iyo Joyan hal koox geliyo, laakiin Sujin ayaa horay kooxda ugu jirtay. Joyanna waxay noqotay qof dheeraad ah. Han Si-jun ayaa fursadda ka faa'iidaystay oo Joyan kooxdiisa ku soo jiiday. Ciyaartu waxay ahayd in 4 qof ay hal warqad dushiisa wada istaagaan. Kooxda Suhon si adag ayay isku laabteen, laakiin Suhon indhihiisu waxay ku maqnaayeen kooxda Han Si-jun. Markii warqaddii la sii yareeyay, Han Si-jun wuxuu go'aansaday inuu Joyan dhabarka ku xambaaro si ay warqadda ugu wada fadhiistaan. Suhon markuu arkay Han Si-jun oo Joyan xambaarsan, wuxuu rabay inuu u cararo si uu u kala geeyo, laakiin saaxiibadiisa ayaa dib u qabtay. Si uusan u guul daraysan, Suhon isna waxaa qasab ku noqotay inuu Sujin xambaaro. Tartanku wuxuu ku soo haray labada kooxood ee wiilasha. Heerka ugu dambeeya waxaa la weydiiyey wiilasha inay hal lug oo keliya dhulka dhigtaan iyagoo gabdhaha xambaarsan. Ugu dambeyntii kooxdii Han Si-jun ayaa dheelitirka weysay, waana ay dhaceen. Ugu dambeyntii kooxdii Suhon ayaa guulaysatay. Suhon wuxuu arkay Joyan oo ka caawinaysa Han Si-jun inuu boorka iska tirtiro, taas oo sii kordhisay xanaaqiisa. Sujin ayaa iyaduna dareentay inay wax jiraan. Habeenkii Suhon wuxuu Joyan ugu yeeray bannaanka si ay keligood u sheekaystaan. Iyagoo socda ayay waxay tageen meel aad u fog oo la yiraahdo wadada aan laga soo noqon. Waxaa jirtay sheeko leh meeshaas jinniyo ayaa jooga. Isla xilligaas ardaydii kale waxay dhegaysanayeen oday sheekaynaya oo leh gabar ayaa jirtay oo diiday guur waalidkeeda ay u qorsheeyeen, kadibna god ku dhex dhacday oo dhimatay. Wixii markaas ka dambeeyey, qof kasta oo godkaas u dhowaada habaar ayaa ku dhaca. Ardaydu ma aysan rumaysan, waxayna go'aansadeen inay godka soo baaraan. Dhanka kale Suhon iyo Joyan waxay saarnaayeen doon yar iyagoo sawir iska qaadaya. Si kedis ah, tixsi ayaa wejiga uga soo duulay Joyan, naxdin darteedna waxay ku dhex dhacday webigii. Markii Suhon uu biyihii ka soo saaray, make-upkii wejiga kaga jiray oo dhan waa uu ka mayrmay, wejigeedii dabiiciga ahaana waa uu soo baxay. Isla xilligaas Sujin ayaa meesha soo martay. Joyan oo naxsan ayaa Suhon hore u riixday si uu u qariyo. Sujinna waxay aragtay Suhon. Suhon wuxuu isku dayay inuu Sujin ka kaxeeyo meesha, laakiin Joyan ayaa dhulka ku dhacday iyadoo isqarinaysa. Suhon wuxuu been u sheegay Sujin in waxa dhulka jiifa ay yihiin doofaar duurjoog ah. Markaasuu Sujin gacanta qabtay oo meeshii ka kaxaystay. Ardaydii kale waxay gaareen godkii habaarka lahaa. Wiilkii cayilnaa ayaa wax arkay, naxdin darteedna dhammaantood way carareen iyagoo xitaa surwaaladooda kor u soo jiidan waayay. Joyan waxay istiri malaha ima aysan aqoonsan. Markay damacday inay dib u laabato ayay aragtay Han Si-jun oo raadinaya. Si kedis ah, telefoon ayaa soo dhacay. Han Si-junna wuxuu arkay Joyan oo make-up laan ah. Joyan naxdin darteed ayay geed kaga soo dhacday. Han Si-junna markuu wejigeeda arkay, naxdin ayuu la miir doorsoomay. Joyan waxay ku dhuumatay meel cidlo ah, waxayna aragtay fariin uga timid Suhon oo weydiinaya halka ay joogto. Waxay ugu jawaabtay inay teendadii ku laabatay. Suhon wuxuu jeebka kala soo baxay sanduuq yar oo ay ku jirto silsilad, wuxuuna rabay inuu caawa u sheegto inuu jecel yahay, laakiin dhibaatadii dhacday ayaa qorshihii ka xumaysay. Maalintii xigtay, Joyan waxay soo kacday aroor hore si ay make-up u soo marsato. Macallinkii ayaa ardayda isugu yeeray, wuxuuna u sheegay inay jiraan 5 qasnadood oo qarsoon oo yaala agagaarka, qofkii helaana uu isagu leeyahay. Dhammaan ardaydii waxay bilaabeen raadinta khasnada. Joyan waxay macallinka u sheegtay inay xanuunsanayso si ay keligeed u noqoto. Han Si-jun ayaa arkay, wuxuuna raacay baabuur si uu u raadiyo halka ay martay. Han Si-jun ayaa dhowr jeer u yeeray Joyan, laakiin markay u jawaabi weyday ayuu wejiga ka taabtay. Wuxuu ogaaday inay qandho hayso, markaasuu si degdeg ah baabuurka uga degay si uu biyo iyo daawo ugu soo iibiyo. Markay daawadii liqday, wuxuu ku daboolay jaakadiisa, wuxuuna gacanta ugu xiray jijin yar. Suhon oo meel walba ka raadinayay Joyan ayaa soo gaaray gaariga agtiisa. Han Si-jun markuu arkay Suhon, wuxuu madaxa Joyan soo saaray garabkiisa si uu u dareensiiyo inay xiriir leeyihiin. Suhon markuu arkay muuqaalkaas iyo jijintii cusubayd, aad ayuu u xanaaqay. Wuxuu damcay inuu toosiyo Joyan, laakiin Han Si-jun ayaa ka hor yimid. Labadii wiil waxay bilaabeen inay u dagaalamaan jacaylka Joyan. Ardaydii kale oo meel fog ka arkayay ayaa u maleeyay inay cayaarayaan, laakiin dhab ahaantii waxay isku weydaarsanayeen feer iyo hadallo kulul. Habeenkii waxaa la qabtay xaflad. Ardaydu waxay ka codsadeen Han Si-jun inuu heeso, laakiin markii hore waa uu diiday. Markii ay Joyan ka codsatay, wuxuu ku yidhi, waan heesayaa, laakiin waa inaad codsigayga fulisaa mar dambe. Joyan waa ay ogolaatay. Han Si-jun ayaa masraxa fuulay, wuxuuna ku luuqeeyay hees aad u qurux badan oo dadka wada cajabisay. Joyan weligeed ma filayn in ninka ay u haysatay inuu dagaalka keliya yaqaano uu cod intaas leeg leeyahay. Maalintii xigtay, markii dugsiga lagu soo laabtay, Joyan waxay damacday inay Suhon u dirto sawirkii ay shalay wada galeen. Laakiin Suhon wuxuu sugayba sawirkii waa uu waayay. Markii ay Joyan hubisay taleefankeeda, waxay ogaatay inay si khaldan sawirka ugu dirtay wiilka ookiyaalka xiran ee fasalka ugu hadalka badnaa. Haddii wiilkaas uu arko, dugsiga oo dhan ayaa ogaan doona. Joyan waxay u carartay dhanka wiilkaas, waxayna ogaatay inuusan weli fariinta furin. Si ay sawirka u tirtirto, waxay u baahnayd inay taleefankiisa qaadato, laakiin taleefanku wuxuu lahaa baaswood. Intii lagu jiray casharka, wiilkaas wuu seexday. Joyan fursaddii ayay ka faa'iidaysatay, si tartiib ah ayay fartiisii ugu cadaadisay taleefanka, waana uu furmay. Laakiin nasiib daro, isla markii ay damcay inay sawirka tirtirto, wiilkii ayaa soo toosay. Wuxuu arkay Joyan oo
taleefankiisa haysata, markaasuu weydiiyey, maxaad taleefankayga u haysataa? Han Si-jun ayaa si kedis ah u soo baxay oo taleefankii wiilkii qabsaday. Markuu arkay sawirkii Suhon iyo Joyan, wuu naxay, balse Joyan ayaa si degdeg ah taleefanka uga daftay oo sawirkii tirtirtay. Han Si-jun ayaa Suhon ku fiiriyey indho caraysan oo aan ku faraxsanayn waxa uu arkay. Maalintii xigtay, Joyan iyo Suhon ayaa kulmay. Maadaama ay ka cabsanaysay in gabdhaha dugsiga ay dhibaato ku sameeyaan haddii jacaylkooda la ogaado, Joyan waxay isku qarisay dhar iyo ookiyaalo si aan loo aqoonsanin. Waxay doorteen maqaayada ugu qarsoon ee ugu fog dugsiga. Waxay dalbadeen raashinka loogu talagalay dadka isjecel, laakiin waxay arkeen inay hal gacan oo qalabka cuntada ah haystaan. Suhon ayaa bilaabay inuu Joyan cuntada afka u geliyo. Isla xilligaas waxaa u soo gashay shaqaalihii maqaayada oo u waday qalabkii ka maqnaa, waxayna aragtay muuqaalkaas xishoodka leh. Si kedis ah, Joyan waxay aragtay ardaydii fasalkeeda oo maqaayada soo galay. Waxay Suhon ku amartay inuu miiska hoostiisa ku dhunto. Ardaydii waxay weydiiyeen Joyan cidda ay la cuntaynayso, waxayna tiri keligay baan ahay, laakiin ma aysan rumaysan waayo qof keligiis ah ma dalbado cuntada noocaan ah. Wiilkii oo kiyaalka lahaa ayaa gartay in Suhon uu miiska hoostiisa ku jiro, laakiin isagoo ixtiraamaya ayuu ardaydii kale ka haystay kadib markii uu Suhon ku kaftamay. Maalintii Axadda, Joyan waxay raadsatay shaqo maalinle ah si ay lacagta dugsiga isaga bixiso. Markii ay gashay musqusha gabdhaha iyadoo niyad jabsan, waxay ku dhex aragtay nin aysan garanayn oo dharka iska siibaya. Waxaa soo baxday in ninkaas uu ahaa Han Si-jun. Han Si-jun markuu arkay inaysan jirin meel raggu ku xaajo gutaan ayuu gartay inuu musqul khaldan soo galay, markaasuu cararay. Waxaa soo baxday in Han Si-jun uu dukaankaas ka shaqaynayo oo uu u yahay moodel. Sawir qaaduhu wuxuu u baahnaa gabar moodel ah oo maanta ka baaqatay shaqada, markaasuu doortay Joyan maadaama ay muuqaal qurux badan lahayd. Joyan markay maqashay lacag baa lagu siinayaa, markiiba way ogolaatay. Laakiin Han Si-jun oo xasuusan dhibka ay Joyan ku haysay, ma uusan rabin inuu la shaqeeyo. Sawir qaadihii ayaa arkay inaysan isku duba dhacsanayn, markaasuu amar ku bixiyey inay nasasho yar qaataan. Muuqaalka like saar haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka, subscribe dheh, gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsanid.